الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal caaway waa habeenkii saddexaad nadwadeennii inoo socotay kulankeenii 12aad kulcimiyaadkii 12aad caawa seen wada sugaynay waxaana ku qoran Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cilmiga faraha badan iyo khayrkaas ay culimmadu inoo sheegtay ilaahay inuu ku anfaco, iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu daro. sideenii wanaagsanayd baan u dhageysanaynaa insha Allah. ilaahay idinkii una weelaynaynaa arrimihii la soo gudbiyey oo ay guddiga masjidku soo gudbiyeen oo ay xasiloonida iyo in la fariisto iyo in dadka waaweyn la qadariyo. intaasna insha Allahu tacaala ayaynaan ka tegin. intaynu masjidka fadhino aynu insha Allahu tacaala xisaabsanno in ajar inoo soconayo oo khayr ku dhex jirno, oo aynu fadhino meeshii ugu fiicnayd, meel la fariisto meeshii ugu fiicnayd. sheekhan si toos ugu soo dhaweynaya insha Allah. qaybta damana su'aalihii bay gali doonaa haddii ilaahidmo. walaalaha iridda taagan haddii ay boos waayeen bannaanka bannaan oo gogol shitaala, haddii meel bannaantana ha soo galeen insha Allahu tacaala. sheekhan ku soo dhaweynaya, ku soo dhawow sheekh. jazakallahu khayr. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. درسه عاوح كساب سيحي العلم ودوره في بناء المجتمعات. أقونت هي الدور كما waxa ay ku leedahay kaalinta ay ku leedahay dhisidda bulshooyinka. war kooban marka aan tilmaamo wuxuu noqonayaa inuu idhaahdo dunida tan waxa Ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala asraara kownku bay dhahay waa khazaana mali'atun bil asraar. marka kownka waxa nimcata alla korkiisa iyo hoostiisaba iyo waqtiga labadaba waxa lagaga faa'iideeyaa inta aqoon la hayo. sawgeed marka ay tilmaamayaan cilmiga iyo qiimaha uu nolosha ku leeyahay waxay yiraahdaan idaa aradta dunya fa alayka bil ilm wa idaa aradta al aakhirah fa alayka bil ilm. adduun haddaad doonayso aqoonta ogow, aakhirah haddaad doonaysana aqoonta ogow. labaduba waxay ku xidhan yihiin aqoon. waxaan isku dayayaa markaa maadaama waqtigu aad u kooban yahay inaan tilmaamo ru'uus al-aqlaam. inaan meel fog istaago oo wax ka tilmaamo. koo waxaanu tilmaami doonaa qur-aanka iyo sida uga warramay cilmiga. أهم أدوات الخلافة في الأرض بين هذا العلماء إن دولك بني آدم كو خلافة كسمعية ودقو أقب كوغوين وباهن يبين هذا إلهي وسيي ملايكة اللوغو سجود سيي اللوغو كرامي آدم وعلم غير هذا. آدم ملايكة كما بدنين تصبيح هي عبادة هنا هي قوة خارقة وتي، لكن وأقنت علم جاهدا ليس سبحانه وتعالى. سوجد بإلهي وحلي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علماء واحد هذا مكا آدم وحي كواد الأساسية مؤهل كوغردقي inuu dego dhulka kan waxay hayd aqoon. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu soo diray loogu talagalay dunida inuu bedelo risaaladii ugu dambaysay ilaa qiyaami saaca joogaysa loo soo dhiibo
أول آيات lagu soo dejiyey waa shanta aayadood oo ugu horeeya سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصوص كورميسا قراءة هي علمي هي قلم كورميسا علماء يدهدان أفرت آيات أفرت السورة ذي وسهر دقيق القرآن كبا يدهدان والسورة ضطن هي مدثر هي مزمل هي نون والقلم ويسويد ويداريا سيوسوك الهرية لكن نافرتا وحكم إذا بين لنا هي النون والقلم وما يسطرون إلهي سبحانه وتعالى وينا ينوط الماما يو كنا يقالنك هي وما يسطرون أي ما يكتبون قالنك هي وحل قرية علماء يقولون القرآن آلاف الموضوعات بكور رميه لكن أول موضوع نبي محمد وسودة يسقى أمي يوم وحبنا آخرين وهي قراءة علمي سأوجد علماء يقولون ومفتاح هذه الدنيا مفتاح فهم الدنيا والآخرة علمية ولبابا يقولون وحبرشاد قيبته وقاضي قرالك وحبرشاد علم الدقوق والوقا هذا كرا لكن قيبته وقاضي قفك قرال إنه وحكو سمايو أي نصوص تاني كورميسا بل علماء قاركود ده waxay sii tilmaamaan ba kownkan ba ilaahay markuu bilaabayay qalin baa la abuuro la yidhi uktub sa xadiista saxiix ku soo aroortay carabi waqtiga waxay ahayd cilmi waxa ugu dambeeyay ka fakaraan aqoon agtooda ma oo khuraafiye jahli baa yaalay taariikhdooda camiiqana kuma jirto aqooni لكن إلهي سبحانه وتعالى وحكم بلاوي قضية العلم تحسي وحي تلمامي سبع علماء دوليه أهمية دا أقوانتو أي أولى دا هي بلشة إلا بدلوه وهي نبي محمد وحال الله صادر إنه بلشة بدلوه إنه دوني دا يسبدل كسما أيه وحي كلا علماء دو تلمامان إلهي مركو نبي محمد النشي يغانا ينوح وقم النشي يكتب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بين ورقه وبنت الممنوع وحيد هذا أرجع العلم العين واللام والميم مشتقات كيسو تضرب غلي سقالي تضبات شرب القرآن كقصارات ويضع إن أنت المؤمن رأيك لا ما عقلك ما فكرك ما نظرك ما يقينك ما وحك والرمية وينا يري علمية sunnadana dee iyada tira bada kitaabka bukhaariga qura baa la yidhaahdaa 300 jeer buu ku soo arooray marka sunanka kale iyo kutubta masaanida iyo waxa kale oo dhan idan waxaan intaasi waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen ahmiyadda cilmigu guud ahaan baa u leeyahay waana wixii ilaahay faray nabi maxamed inuu ilaahay weydiistay in loo kordhiyo waqul rabbi zidni cilma waana axaadiista saxiixiisay tilmaamayso صلاة الصبح مركو النبي عليه الصلاة والسلام تكدو وابريبه وحكو دعيسان شرينا كنبوها سقط طبقا وقل رب زدني علما اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلاة الصبح كاستقى دا الشيء إنه حديثك كان أخريه مسألة طموحات كقرا كرتا إنه النبي وكشة عليه الصلاة والسلام دوني دبا قيمة دون أقول تيجي وحيدك علينا أنا قيمة بدل الله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أما هو عالما ومتعلما أدونكو إن قيمة صمينين إلهي حسكيس هي علمي أو حكا صهرة آذنه مركا الله لنبو بجرا نولشان سيدو قوليس لها أساس نجاح الأممنا وأقون سيدا وقد بين لنا وآدم markii la dooranayay wixii lagu doortay waa wixii koowaad nabi maxamed lagu soo dajiyay
dowladaha ugu waaweyn ee islaama ee soo maray dunida qur-aanku uu ka warramayna waa waxa ilaahay ku sifeeyey alcasr الdahabi lidowla alyahuudiya waa nebi daa'uud iyo sulaymaan markay joogeen iyo taaluut oo bilaabay casru dahabi waa saddexdaa boqor markay isku xigeen baa la tilmaamaa qur-aanku wuxuu kaloo ka warramay dhowrka nin ay culammadu yidhaahdaan duniday dacal ilaa dacal mareen ama dunida intii ugu badnayd bay qabsadeen dulqarnayn baa ka mid ah dhammaantood ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aqoon weliba markaan hoos u tilmaamo aqoontaasi mid sharciyeedna way lahayd mid tanaynu maadiga ku sheegnana ama culum alxayaatiya culammada qaar yidhaahdaan culumta nolosha ku saabsanee kalena way lahayd sidaa awgeed ayaa reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu doonaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamay waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacata lakum طaaluuta malika qaluu anna yakunu lahu اlmulku calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minh walam yu'ta sacata min almaal qaala in allaha اصطafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu rabnaa na dagaal geliya iyagu waxay moodayeen de dadkan magaca ku dhexle ama xoolaha haysta ama kuwa in la dooranayo laakiin ilaahay mid kale u doortay oo ah lagu tilmaamay ciidan hogaamintii waxa ay u baahnayd inuu leeyay cudud iyo laxaad iyo aqoon baa ilaahay ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala nebi daawuud iyo muuse iyo sulaymaan ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu u manno sheeganayay mulkigii la siiyey waxa laga horraysayey cilmiga la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma waqaala alxamdu lilaahi aladii fadalana calى kaiiri min cibaadihi اlmu'miniin bale sulaymaan markuu sheeganayay nicmooyinkii ilaahay siiyey waxuu sheegtay yaa ayuha الnaasu cullimnaa mantiqa طayr yaa ayuha الnaas cullimnaa mantiqa طayri wauutiina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin bale waxaynu qur-aanka ku aragnay shimbir nebi sulaymaan u sheeganaya aqoon inuu dheeryahay aanu sulaymaan haynin shimbir yaro hudhud la yidhaahdo oo war soo helay dheeraado aanu nebi sulaymaan hayn ayaa wuxuu lahaa axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxaan soo koobin baan soo koobay buu leeyahy saba meesha la yidhaahdo waxaan kaaga keenay naba yaqiin ah war la hubo cilmiga gebigiisubana waa information waa macluumaad cilmigu maaha wax cusub aad keenayso waa wax alla abuuray oo aad ogaanayso siduu u shaqeeyo aqooni waa inta ah waxaan aqoonta bini aadamku wadoo dhami wuxuu daraasaynayaa wax ilaahay abuuray siduu u shaqeeyo inuu fahmo kadibna inuu isticmaali karo markaa waa information bay yidhaahdaan waa khabar wuxuu sheeganayaa shimbirka kane khabar inuu hayo aanu haynin nebiyullaahi sulaymaan marka aan soo koobo nusuus aad u badan oo qur-aana ka warramaysa waxaanay tilmaamaysaa ambiyadaasi dowladaha xoogga ah haystay inay aqoon iyadoo ambiyadoo dhan ilaahay aqoon guud soo siiyey oo waxyiya haddana mid kale ina iyaga ilaahay siiyey subxaanaه wa tacaala bale waxaa kugu filan aqoonta xataa maadiga ah ama alcilmi الtaطbiiqiya waxay yidhaahdaan applied science cilmiga know-howga isu bedelay qaabka wax loo qabto isu bedelay ee theory nadari ka guuray ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya rusul baan soo diray laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلهي وحو لي الرسول بان صادري بينات عدعدية حجج معجزات بان صادري وحن سور راعية كتابية ميزان حق يا باطل كالغو كلا قرطو وحن ساوي يا لبا إلهي لي يددكو إني عدالتكو الصقمان وأنزلنا الحديد با إلهي حديد كلا سودكي waxay dhahdaan xadiidku wuxuu ka mid yahay xadaaraadka dhismahooda waxay ku dhismaan ugu horeyn culamada saynisku waxay tilmaamaan xadiidku inaanu ka mid ahayn maadada dhulka oo markay hadda tilmaamayaan
chemically siday u samaysmaan atomisku terrestrialka dhulku inaanu suurtagal ahayn xataa markay lahaayeen wuu karayay in xadiid ku samaysmo xadiidku waa shay meel kale ka yimi baa la isku waafaqsay scientifically xadiidku inaanu ka mid ahayn dhulka waxa yaale wax meel kale ka yimi inuu yahay fasirintii hore waa anzalnaaga waxay ku fasiri jireen bimacna alkhalq laakiin iminka waxaa la ogyahay inay inzaalkeedii rasmiga ahay tahay sidiisa uu xadiidka loo soo dejiyey taa markaynu dhaafno horumarka bini aadamku ee xadaaraadku markayna intaynan enerjiga soo gaadhin wuxuu kala xoog badnaa sidii birta farsamaynteeda iyo soo saaristeeda loogu kala xoog badnaa ugu horrayn sanaacaadka haqiilka ama sanaacaadka waaweyn ee dunidu may dhismin intii aan productionka iron ku bilaabmin hadday tahay maraakiib hadday tahay treenno hadday tahay daaraha la dhiso daaraha dunidu intaan xadiidkan farsamadiisa saanay loo baranin 4 kama badnayn ilaa 5 oo dhoobadan qawska ee la dhisaa hadday 4 ama 5 engineeringkeedu dhaafo way dumaysay si awgeed markii la ogaaday birtan shubka lagu dhex shubi karo ay soo baxday ayay bilaabantay in tabaqaadkan dhaadheer la dhisi karo ugu horreyn waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid baa ilaahay yidhi waxaanu u jilcinnay birta farsamada birta baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo uu ka samaynayay duruucdii iyo wixii lagu dagaalamayey iyo wuxuu ku dagaalgalayay oo dhan nebiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cayna alqitr in loo dareeriyey waalqitru في اللغة waxay ku tilmaamaan النحاس المذاب أو الحديد المذاب inuu yahay القطر hadii la yiraahdo القطر hadii la yiraahdo waa roobka القطر hadii la yiraahdana waa min aqطار السماوات والأرض القطر hadii la yiraahdo markaas qaafka la hoos dhigo waxay yiraahdaan waa الحديد المذاب أو النحاس المذاب shubka la shubo naxaasta ama xadiidka waxa nusuusta uu si tilmaamaya waxay tahay technology-gu markuu aqoontu markay practical isu bedeshaabay qiimaha samaysaa bilqarnayn ilaahay markuu tilmaamayo waxaa lagu tilmaamayay inuu lahaa aatuni zubra alxadiidi xataa idaa saawa bayna sadafayn qaala انفخوا xataa idaa jacalahu naara qaala aatuni ufriq calayhi qitra xadiid iyo qitr mudaaba xadiid mudaaba ama nuxaas mudaab uu isku daray si uu nimankii meesha lagu xidhayay uu si fiican ugu xidho science oo dhamme wuxuu ka warramaa speed and time bay yidhaahdaan technology-ga horumarkiisu waa laba shay uun wakhtiga waxaa lagu qabanaya in la dedejiyo iyo makaanka wuxuu qaadanaya in la sii yareeyo sanacadu mar kastoo ay sii yaraato ay horumarto shaygu mar kastoo wax yar sii noqdo la sii yareeyo waa horumaray marka aqoonta cilmigu waxay qabataa laba shay inay space-ka yarayso wax la dhigayo lagu samaynayo iyo wakhtigu waxaas wax ku qabanaya in la tiro badiyo ilaahay markuu ka warramaya nebi sulaymaan waxaa la tilmaamay dabayla inay qaadayaan speed samaynaya ka dheeraynaya wixii markaa la watay oo gelinna bil sii soconaya in la socday gelinna in leeg soo soconaya waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay nebi sulaymaan markuu rabay balqiis inuu soo qaado oo loo keeno carshigeedii ilaahay wuxuu ku sheegay cifriit min aljin baa yidhi anaa la soo duulaya oo intaanad shaqada ka bixin baan keenaya qabla an taquuma min maqaamik shaqada inta aad ku jirto ayaan keenaya ilaahay wuxuu sheegay waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab kii aqoonta la siiyey kan ammaan waxa ugu filan in sifadiisa la sheego laynama sheegin inuu jin yahay inuu malaa'ig yahay inuu insi yahay midda ku qoladuu noqdo toona qiimo badan samayn mayso waxa qiimo samaynaya waa farsamada uu garanayay waxa qiimaha samaynaya waa kaa saa daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab kii aqoonta la siiyey ayaa wuxuu yidhi intaan ilbiriqsi ka yar ayaan ku keenaya kullu haadihi nusuus waxaan rabaa inaanan sii balballaadhin sharaxe soo koobo waxay tilmaamaysaa aqoontu
weliba markay aqoontu know how isu beddesho markay isu beddesho applied science wax farsamo oo la isticmaalaya markay noqoto inay tahay kullama bini aadamka horumarkiisa iyo dheerayntiisa iyo xooggiisa ugu jiro waxa kaloo la socda bay yidhaahdaan culimmadu xirfadyahanimada oo umamka maanta marka la qiimeynayo waxa la qiimeeyaa maalan muwaasiinta ay wax ku qiimeeyaan horumarka waxaa ka mid ah ummadda milyankii qofba imise baaxitho cilmiya bay leeyihiin waxay kaloo wax ku qiimeeyaan milyankii qofba imise xirfadyahan baa ku jira technicians imise ku jira nebi sulaymaan markii ilaahay inooga warramayo boqortooyadiisii aadka u ballaadhnayd waxaa laynoo sheegay xirfadyahano khataraynu haystay wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik shaydaamo farsamo yaqaana buu haystay oo badiyo berriba wax ka keenaya farsamadiisu waxay gaadhsiisanayd islaantii mufasiriintu ay balqiis ku sheegaane haysatay saba markay timi qiila laha dkhuli sarxa baa la yidhi dhismahan gal falamaa ra'atu xasibatu lujja in meesha biyo ku jiraan bay mooday oo lagu dhacayo laakiin meesha waxay ahayd sarxun mumarad baa la yidhi dhisme dhalo laga dhigay oo aanad arkaynin waxa ka hooseeya aan kuugu muuqanaynin siduu yahay intaasoo dhan waxaan uga dan leeyahay inaan tilmaamo qur-aanku qiimaha uu siiyey cilmiga ama kiisa aynu iminka maadiga ku sheegna ha noqdo ama kii waxyiga ha noqdee ummadda muslimiinta ah waxay maanta dunida kaga jirtaa baynu leenahay meel dambe sababtuna waxa weeyaan waxay dayacday wixii aadanaha dhismihiisa iyo dowladnimadiisa ka qayb qaadanayay ama horumarka wixii ku salaysnaa waxay yidhaahdaan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamka dunida kor jooga marka la eego muslimku rubuc ka mida weeyaan afartii qof ee dunida marayaba midbaa muslima haddana bay leeyihiin marka la eego aqoonta science iyo technology-ga iyo politicalka iyo economicskaba dhaqaale siyaasad cilmi meel dambaynu maraynaa inaynu meel dambe marayno waxaa kuugu filan ixsaa'iyaad waxoogaa ayaan idiin sheegi doona tiro koobiyo waxay dhahdaan dhaqaalahii dunidu sanadkii samaysaa waa ilaa 60 trilyan aadanaha kor saaran dhulku dhaqaalaha uu soo saaraa bay dhahdaan waa 60 trilyan muslimku wax 3 trilyan ka yar buu soo saaraa dunida 60 trilyan baa la soo saaraya dhaqaalaha muslimku 3 trilyan wax ka yar waxay dhahdaan dhaqaalaha muslimiintu sameeyaan oo dhan 70 milyan ee faransiiska baa ka badan bal waxa laga yaabaa inay ku labalaamayso 120 milyan ee jabaaniiskii dhaqaalahay soo saaraan iyo tirakoobka caalamul islaam oo dhan carab iyo ajamtiisaba isku dar dhaqaalahay soo saaraan 120 kaas nuskeed bay soo saaraan 120 sanamka caabudo inaynu nuskii la dhaqaalo noqonnaa inagoo dhulka intaa leeg leh oo adduunka intaa leeg joogana waa ceeb runtii ka soo saaray ka dhaqaalo badanta dhaqaalaha Spain soo saarta iyo 12 waddan ee shidaalka soo saara Spain taayar baa GDP-geedu ka badan yahay Abu La'la al-Mawdudi Abu al-Hasan an-Nadawi baan u jeedaa raxmatullaahi calayh sheekhi hindiga ayaa dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii 16aad wixii ka dambeeyay muslimiintu su'aalihii cilmiga ah iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen su'aalaha metaphysics-ka ka warrama ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahay maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay waa sababta keentay buu leeyahay cilmiga iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leedahay maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay مثلا الأمم المتحدة UN qaybteedan UNDP la yiraahdo taqriir ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah kristanka sheegata marka la isku daro Yurubteed iyo kuweeda kaleba
boqolkiiba 90 baa wax qora. That means illiteracy-goodu dadka aan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba 10. si kale markaan u tilmaamno waxay leeyihiin 15 waddan oo dunida kristanka ka midi qof aan wax qorin ma joogo. dadkoo dhammi waxbay qori karaan waxna waa akhri karaan. dunida muslimka si haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba 40 baa wax qori karta. qiyaas caalam islaami dunida masiixiga marka la eego bay yiraahdaan dadkooda mutacallimiinta boqolkiiba 98 baa dhammaystay dugsi hoose. dunida muslimiinta ana boqolkiiba 40 ka aynu sheegnay konton ka mid ah ayaa dugsi hoose ka baxay. that means 50 ka mid ah dugsi hoosena kama bixin. waxay yiraahdaan dunida reer galbeedka ama masiixiga marka la isku daro dadkooda mutacallimiinta boqolkiiba 40 baa jaamacad tagay. muslimiintana boqolkiiba 2 jaamacad tagay. boqolkiiba 2 markii horeba boqolkiiba 40 bay waxbarashadoodu ahayd. 40kiiba boqolkiiba 2 jaamacad ka tagtay. qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba 90 ahayd. 90kiiba haddana boqolkiiba 40 ay heer jaamacadeed gaarsiisay. wadannada inaga inoo aqoon-yahanka Masar baa ka mid ah boqolkiiba 30 baan waxna akhrinin waxna qorin. 29.6 bay yiraahdaan. haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba 30 baan gacantoodu musxafka taaban bay yiraahdaan. ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri baa maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteena. kuuba wadannada faqriga bay ka mid tahay. da'yarteeda u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir qof aan wax qorini kuma jiro. waa kuuba waa waddan faqiir haddii faqri lagu xisaabtamayo. dadkeeda waaweynna boqolkiiba 0.2 ayaan wax qorin. 0.2 waa imisa waa mid 10 meelood loo qaybiyay laba ahaan. boqolkiiba 98.8 ayaa wax qora dadkeeda waaweynna. waxaa la mid ah Brazil, Chile, maxaa la yidhaahdaa Colombia. wadannada yaryar caynkaas boqolkiiba 97 ama 98 baa wax qora waxna akhriya. dhan kale wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam islaami oo dhan 600 jaamacadood ba ku yaala bay yiraahdaan. bilyan iyo badh ama 2 bilyan oo bini aadam 600 jaamacadood leh. waddanka Maraykan oo qurina marka instituteskiisa iyo jaamacadkiisa la isku daro 5,200 weeyaan. inta accredited-ka ah inta muctamadka ah ee 4 sano oo qualified ah ayaa 2,618 jaamacadood. that means hal waddan baa muslimka oo dhan marka la isku daro 4 jeer ka jaamacado badan. muslim oo dhan marka la isku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa. si kale haddaan u tilmaamo 57 waddan baa muslimku majority yahay. 57 ka waddan ee muslimka ay maalan jaayisada caalamiga ee Nobel Prize-ka la yiraahdo 3 goor bay weligood qaateen. 3 goor ayay weligood qaateen. 3daasina xataa tira maaha. 3da qaatay 3duba markay jaamacadka levelka hoose caalamul islaami ku barteen bay ka tageen. 2 iyagoo Maraykan joogay qaateen. jaamacadka Maraykan bay baxtiga ku sameeyeen. midna isagoo Talyaaniga iyo Ingiriiska joogo baxtiga ku sameeyay oo ku qaatay. 2 chemistry ku qaadatay. waa nin Turkiya iyo nin Masriya. midna waa Pakistani. nasiib darrada ka Pakistaniga waliba waa qaadiyaan isagu. marka waxaynu tirsanayno dhami oo muslim Nobel Prize qaato dhan haddii la isku daro waa 3 nin oo gaalada la joogay ee jaamacadka islaamiga ah ee caalam islaami wixii ku yaalay waxba may soo saarin. that means 0.05 Nobel Prize dunida la bixiyay intaas aynu ka qaadanay. gaal mulxid oo la yiraahdo Neil deGrasse Tyson nin midow oo Maraykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeyo ka mid ah. ana mulxid aan ilaahay rumaysanayn alla adriya ayaa wuxuu leeyahay
15 milyan oo yuhuudda dunida joogto oo dhammi buu yidhi waa 15 milyan marka la eego buu yidhi taariikhda 1902 ilaa inta la soo gaadhayo 2010 intii u dhaxaysay 150 Nobel Prize bay qaateen 15 milyan ee dunida jooga yuhuudda waxay qaateen 150 Nobel Prize oo science ah ka hadli maayo kuwa khuraafada ee maxaa la yidhaahdaa caalam islaam la qaatay inagu Nobel Prize keenu qaadana ma taqaanay waa saadaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey carafaad baa qaatay yuhuuddu la heshiiyey hablaha xuquuqda dumarka u dagaalama shiriin inantii eeraanada xuquuqda u dagaalantaa biiskay qaadatay nabaday qaadatay inantan yamaniyada xuquuqda u dagaalanta tawakal baa qaadatay yartii caruurta ahayd ee 17 jirka ahayd ee Bakistaanta ahayd Malala baa qaadatay inagu waa kuwa layna siiyaa hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina buu ku qaatay ma akhrideen wadin la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyey midka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyey wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meeyay dhaqankaygu baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa laynoo siiyeyna waa kuwa Nobel Prize ka qaateen yahuuda 15 milyan hina marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yuhuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yuhuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yuhuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheegnay ilaa 2010 laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan ee yuhuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Mareykan ani gaboobay hadda dhowr isaga jira laakiin waa culimada looga dambeeyo taariikh ulum science history ee wuxuu leeyahay markaan eega buu yidhi medieval period ka waqtigii loo yaqaanay al-usur al-wusta quruntii dhexe dunida 130 caalim baa jiro magacooda la xusi kara buu leeyahay oo aqoonyahan iyo technology scientist iyo technology ahaan jiray 120 ka mid caalamka muslimka ka yimaadeen buu yidhi Yurub naafar bay ku lahayd waa 130 nin ee dunida aqoonteeda hogaaminayay kama waramaya hadda tii sharciga ahayd ma aha waxaan ka waramayaa tii kale 130 nin ee hogaaminayay dunida waqtigaasi medieval period kii oo dhan ayuu gaalkan Mareykan wuxuu leeyahay 120 baa caalamul islaami ka yimi Yurub oo dhan naafar baa ka yimi mulxidkii Niil sahaba wuxuu isweydiinaya war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nigaale markaas wuxuu leeyahay 15 milyan inay inta helaan bilyan iyo bar muslimin in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su'aasha wuxuu ku daray uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlayo buu leeyahay kuwan taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa wawiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xagay ka baxday buu leeyahay isagu isu jawaabaya in kasto laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa kamid ah wuxuu leeyahay labada kala jar bay isbedelay labada dhaqan bay isbedelay qolana cilmiga ay qiimaysay qolana cilmiga ay qiimo la'aan ka dhigtay waay qolana cilmiga uu qiimaysay qolana cilmigu qiimo la'aan u noqday tusaale ahaan caalamul islaam oo dhan waxaynu 600 jaamacadood baa ku yaala dunida carbeed bay yiraahdaan jaamacaadka ku yaala boqolkiiba 75 rubco qarnigii ugu dambeeyay qarniga 20aad baa la dhisay waxaynu wax baranaaba haddaynu bilownahay waa boqolkiiba 75 waxa jaamacad carabi leedahay iyagoo jaamacaadkii dunida ugu horeeyay Fas baa ugu horeysa Azhar baa ku xigta Zaytuna ku xigtaan u maleynaya
kollay labada jaamacadood ugu horeeya tafaas baa ugu horeysa azhar baana laba ah jaamacatu alqarawiyin iyo jaamacatu azhar iyadoo jaamacaadba dunida haddii la sheego wixii ugu horeeyay hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baaba'e horena iyagu lahaayeen waa qurtaba waa baqdaad waa kan magaalooyinkooda ahayd waa samarqanda maantase waddankan yaryare yuhuuda falastiinta boobtay waddankooda yar 25 jaamacadood higher education baa ku yaala marka loo qaybiyay bay yidhahdeen milyankii qofba 4 jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yahuudi ku nooliba 4 jaamacadood baa u dhisan 250 kun oo qof baa jaamacad leh innagana waxay yidhahdeen caalamulislaami jaamacaad ka dhisan iyo dadka marka la isu qaybiyo 3 milyan ba hal jaamacada leh 3 milyan ee muslima ayaa hal jaamacada leh dhan kale haddaan ka eegno jaamacaadka marka la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay yidhahdaan global ranking sida jaamacaadka dunidu u kala qiimo fiican yihiin maalan waxaa jira 3 gruub oo wax qiimeeya shanghai ranking mid la yidhaahdo oo jaamacad ay leeyihiin chinesku waa bilowday 2003 baan filayaa meelahaasi gbs well running mid la yidhaahdo qs well running mid la yidhaahdo iyo jariidadan time la yidhaahdaa mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba 500 jaamacadood ugu horeeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabad ba ku jirta haddaba 500 jaamacadood dunida ugu horeeya definitely waqti dhaweyd wixii ka horeeyay 200 jaamacadood dunida ugu horeeya muslimba kuma jiro jaamacad muslim ku taala kuma jirto iyadoo saddexda qiimeed kriteeriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay waliba kala gedisan yihiin oo haddii systemkan ay ku soo bixi weyday ahayd systemkan kale inay ku soo baxdo waqtiyada qaarkood 500 jaamacadood maraykan oo qura 168 keligii leh ingiriis oo qura keligii 40 leh 20 jaamacadood dunida ugu horeeyo 17 maraykan keligii leeyahay saddexda soo hadhay 2 ingiriis leeyahay 10 jaamacadood dunida ugu horeeyo 8 maraykan baa leh 2 ingiriis baa leh haddaad eegto 500 jaamacadood dunida ugu horeeya 34 jabaan baa leh idan haddaad sidaa u eegto G7ka la sheegaya dee waa jaamacaadkii ugu waaweynaa un dadkii haystay waa dadkii cilmi baadhista sameeyey waa dadkii aqoonta lahaa walidalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baadhbaadho laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarto oo qiimo samaynaysa imikay dhowr midhoo sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyahay boqolka koowaad hadda soo gashay laakiin labada sabjiga ay ugu fiicantay mid baa ingiriisiga iyana oo ay jaamacadda shariicada dunida ka tahay ingiriisiga soo wax ka tarayo marka loo eego Malaysia dhowr leh dhowrka boqol jaamacadood ku jira siba 200 jaamacadood ugu horeeyay hadda 4 bay leeyihiin Turkigu intan dambu soo socda 2 jaamacadood buu ku lahaa intaa waxay nagaga sii daran waxoogageeni iska rafaadka ah intay soo saaraan intaas bay hadana qaataan intii lacagta lagu bixiyay la soo helay la soo saaray markay bislaadaanna hijratul uqul ba bilaabantay waxay yiraahdaan brain drain maskax dareer bay u bixiyeen waxa la yiraahdaa wadanka Mareykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyay 12 milyan buu qaatay bal 1995 kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin waxay ku tilmaamaan sanadkii 2003 wuxuu bixiyay 200 oo kun oo fiise oo 100 kun oo kamid programmers qoray si kale haddaan soo tilmaamno waxay yiraahdaan Mareykanku inuu dunida ka horeeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in laga inuu ka horeeyo saadaradeed midkaad adigu lacagta ku bixisay soo saartayna wuu iibsanaya wuu qaadanaya waxay yiraahdaan dhakhaatiirta Carbeed ee dunida joogta boqolkiiba 50 Yurub iyo Ameerika joogaan dawa carabta dhakhaatiirta u baahnay
dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% ka midii waxay degan yihiin North America iyo maxay iyo Yurub bay degan yihiin waxay injineer lahaayeen oo dhan 23% iyana galbeedkay jiraan waxay culamo khubara lahaayeen 15% galbeed bay jiraan ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta 4% baa carab ah waxa ingiriis ka dhakhtara 4% baa carab that means intii lacagta lagu bixiyay ama Yurub loo diray la soo saaray ama meelahan ba lagu camcamiyay la soo saarayna intiina lacag bay ku qaateen dib bay u iibsadeen saadaradeed waxay dhahdaan ardada caalamka carbeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan 4% baan dib u soo noqonin حمل الشهادات العليا بينادا شهادوين كسره علماء السيدات عربين سنة كي لبضا كن مركا الله تريو أفر بقول إيا كنتم كن باجوغي قلباتك محاسو هذا يا مركا هدي مركا هوري لغا قوم بدنا ولغا جامعة رفيعنا ولغا ونكسنا مركا دنبنا وحوغا غيرا أتصوص عرطو قال ملاحدة كمدة دكتور ميشي يكاكو الله يلعبه أسأل في سواء داير لكن هو مريكان أيها وحوليه هاي سيليكون فالي ما تشرين بوليه هدانو H1B فيسا أنو تشرين بوليه فيسا تشرين الله يلعبه H1B أو مريكان كوبيحيو هدان فيسا هاسي تشرين بوليه سيليكون فالي ما تشرين ويدوني دمانت واقي هوري shirkadaha dunida ugu lacagta badan leh 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi 10 kuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama laba kaga jirta 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh aqlay ku xoogsadeen ee commodity ba ma haystaan qalab ma jiro waa barnaamijyo wax la mid ah waa Amazon shirkadda ugu xooga badan leh وقال كان ويندو قال محل ورجل بيل جيت وقال كان كلام كجواد ده يوح صوص رايح كوحود رئيسنا محل هذا اسكو صدق وكان فيسبوك أو سمايستي وجوجل قرادة سمايستي لما أردت سمايستي لما أنت أدو حباي قرقريرونا برنامج أي سمايستي وحكلوا أي قانون بمشيرو برنامج أي الدنيا بليونير لوي haddana laba shirkadooda kamid ah hadii dhaqaalahooda la isku daro caalamka islaamiga oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaalo badan karaan laba shirkadooda kamid aqoontu xooggaasay dunida leedahay aqoontu xooggaasay dunida leedahay oo dadkii commodity waxay dhaahdaan khamka materialka khamka dunida kuma horumarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay oo aan industry lahayn wadan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsan dunida ma jiro ninka soo walwalaaqo ba horumarsan kaasoo ba dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelasho ay ku yaalina laga soo qodaa waa un ceelka laga la baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saawgeed ay wax isku dayeen Mareykan maanta galkaasi Miishaya Kaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay Mareykan degani boqolkiiba 50 dabad bay ku dhasheen Mareykan uu kuma dhalanin dad miinisu wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni kari waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu shawikiisa wax ku baro Afrikadan madoowa taqaaniin waxay yiraahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabtaa dabeetana bay yiraahdeen khubaro la taliso si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu kugu joogaa markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20 ka qaataan khubaro waxaan uga dalleeyay markaa haddaad maqasho dunaa horumartay dhidid bay ku horumareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horumarin cid inta iska seexatay badhaadhay oo horumartay ma jirto cid aqoon adeegsatay ayaa horumartay innagana waxba inagama xigaan inaynu horumarno waxba inagama xigaan
go-aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dawlad iyo qiyaadaba inaynu yeelanno go-aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno, cilmigu inuu wax yahay. innaga cilmiga waxuma aragno, cilmiga waxuma aragno. haddii marka aynu rabno horumar oo qofka qof noloshiisa difaacan iyo dalkiisa iyo dadnimadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno. nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horu martay. alaab la soo iibsadana laguma horumaro. daara dhaadheer oo la dhiso tagaal la keeno uu daar dheer kuu dhisay waxaa laguma horumaro. dad kolba carabi tidhaahdo daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa, iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh. iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh. waxaa la yaabantiin maxaa farta loogu yeedhaya, maxaa waxaan laynoo leeyahay, maxaa caynka dee waa laynaga xoog batay. waynu seexannay. dee haddaad seexatana ogolow. soomaalida mahmahadeedu maxay ahayd? miskiin baa miska la fuulala bay idhahdeen. adduunka cid isuma naxdo, naxariis ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda. soomaaliya way jabtay. maxaa dunida noogu soo oryi wey? war waa lagu sii korayaa, cid ku soo kicinaysaa ma jirto. mid gaal professor jooga Cambridge University oo kuway ka dambeeyaan ayaa nin sheekho Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su'aal ah, war waddankaygii waa kan degi waayo idinkunbaa ku jira maxaa naga rabtaan? intuu dib u jiifsaday buu cabbaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin. maa laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa. wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi. tii baydan weli aqbalin. markaa inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in caynkaa laydin wado. calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni. haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm, haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.